Assalaamu calaykum asxaabta ku xidhan jecel xirfad kusoo dhawaada muuqaal cusub kaas oo ku saabsan sida Bokod option lacag loogu shubto adigoo isticmaalaya Trace Wallet iyo Ether. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo subscribe noo saar. Haddii aad hore noola joogtayna muuqaalkan like saar. Dhowaan muuqaaladeeda dambe aad ay u hooseeyaan daawashadoodu, like-ta muuqaalada ha loo badiyo. Alla kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Doonayso inaad Bokod option lacag ku shubato, marka ugu horeysa waxaad la soo degaysaa saddexdan application. marka ugu horeysa waa inaad Ether leedahay, marka labaad waa inaad leedahay Trace Wallet, marka saddexaad waa inaad leedahay Bokod option oo aad Bokod option soo buuxisay shuruudihii looga baahnaa, verification aad kusoo tiri wax kasta oo dhammaystiran aad u soo dhammaystirtay. marka labaad waa inaad Trace Wallet soo samaysatay oo hadda aan ku tusi doono qaabka loo samaysto. marka saddexaad waa inaad Ether soo samaysatay. saddexda application ayaa kuu sahlaya inaad Bokod option lacag ku shubato. Trace Wallet uma baahna passport iyo ID card iyo waxa kama baahna, waa application aad la soo degiso laakiin aad fahanto gudigiisa ayaa waajiba. marka hadda waxaan ku horeyn doonaa Trace Wallet, waxaan ku tusi doonaa hadda Bokod option-kayga ayaan geli doonaa. marka Bokod option-ka aan galo waxaan ku tusi doonaa inuu verification yahay, kadib Bokod option-kayga ayaan geli doonaa. markaan ku tuso soo arkaysaan halkan waa Bokod option-kaygii. hadda wax lacag iguma jirto, adigana sidaas leeg hadda lacag iguma jirto. marka Bokod option-ku waa inuu verified ku yahay oo aad verification ka soo dhigatay. muuqaal hore ayaan ka diyaariyay, waa daawan kartaa. waa kan muuqaalku YouTube-ka ayuu ku jiraa. haddii aanad xogta fahmin muuqaalkaas ayaad ku soo fahmi kartaa. hadda waan ka bixi doonaa, waxaan tigi doonaa Trace Wallet. Trace Wallet waa application. marka ugu horeysa waxaad tigaysaa Play Store-ka. Trace Wallet waxaad intan ayaad ku qoraysaa, kadib markaad ku qorto sidaas ayaad la soo degaysaa. hadda waan furi doonaa. marka aan furo waxaan leeyahay san ayaan leeyahay get star ayaan leeyahay, waan bilaabayaa. get star markaan idhaahdo wuxuu leeyahay ku celi mar kale. marka get star aan idhaahdo wuxuu leeyahay marka maxaad doonaysaa hadda inaad samaysato. hadda waxaan doonayaa inaad samaysto. marka sidan oo dhan waxa ku jira Trace Wallet-ka dhammaan cryptadii oo dhan ayaa ku jirta. magacyadan waa coins. marka coins-kan ayaa lacag lagu dirtaa oo application-kan sidaa awgeed ayaa loo isticmaalayaa. coins-kan waxaan ka tusi doonaa Bokod option-ka gudihiisa ayaan ka tusi doonaa. marka hadda waxaan samayn doonaa oo aan odhanayaa create new wallet cusub ee samee ayaan leeyahay. marka ugu horeysa waxaad tegaysaa kan ayaad ku dhufanaysaa. marka create ayaad leedahay, kadibna waxaad leedahay skip ayaad iska sii leedahay. halkan ayaad skip iska sii leedahay. kadib marka aad tiraahdo wuxuu ku leeyahay kaas ayaa fudud. marka ka hoosena waxa security iyo waxaas ayuu kaaga baahan yahay. marka hadda waxaad u samaysanayaa security 6 lambar ayaan u samaysanayaa oo si aan hadhow ugu soo galo. midda kalena ogsoono haddii aad iska saarto iyadoo lacag kugu jirto oo aad mobil kale ka gal istiraado, mobilka kale kama geli kartid ee kan aad ka isticmaalayso ayaad ka geli kartaa. marka hadda allow ayaan sii leeyahay, kadibna sidaas ayuu hadda iigu samaysan yahay. marka hadda waxaa iigu jira intan oo coins ayaa iigu jira. marka coin-ka la iga baahan yahay waxaan ku tusi doonaa coin-anka la iga baahan yahay aan kusoo darsan karo Ether-na ay lacag ii dhigi karto waa coin-kan oo keliya. marka halkan ayaan tegayaa Balasta. kadib Balasta markaan tago halkan sare ayaan ku qorayaa TRX ayaan ku qorayaa coin-ka la yiraahdo. kadibna halkan yar ayaan furayaa. markaan aan furo saa u furo kadib waxaan ka noqonayaa, waxaan eegayaa inay iigu soo biirtay TRX. marka TRX waxa kale oo loo yaqaanaa USDT ayaa ku dhisan. marka iyadana halkan ayaan ku dhufanayaa USDT. haddaan raaciyo oo arkaysaan USDT way ii soo baxday. marka TRX Tron ayay ku dhisan tahay USDT. labadan waa isku mid haddii tan aad isticmaasho iyo haddii tan isticmaasho. marka halkan ayaad furaysaa. hadda tan ayaan dooranayaa Tronta, kadib taas ayaan doortay. tan kale Ethereum ayay ku dhisan tahay. marka USDT-du way badan tahay. marka taan doorto kadib waan ka baxayaa, iyaduna sidaas ayay iigu jirtaa. labadan USDT ayaan isticmaali karaa. marka Bokod option ayaan ka tusi doonaa iyagoo kuwan la iga baahan yahay. andareysyada lagaaga baahan yahay had iyo jeer TRX-ku waa kan. marka hadda waxaan ku noqon doonaa Bokod option-kayga si aan ku tuso. hadda lacag iguma jirto. maxaan doonayaa marka aan doonayaa in lacag soo dhigto waxaan ku dhufanayaa TRX-kan ayaan ku dhufanayaa. marka TRX aan ku dhufto waxaan sii tegayaa qaybta si aan waa markaan lacag kala baxayo. marka receive aan leeyahay waa markaan lacag soo dhiganayo.
halkan waxaan koobiyeynayaa underice-kan ayaan koobiyeynayaa halkan ayaan koobi ka leeyahay waana underice-kayga lacag la igu soo diri karo markasta waa arkaysaa inaan koobiyey underice-kan xageen geynayaa underice-kan waxaan geyn doonaa dirtayda ayaan ku tusi doonaa halkan gelinayo waxa ugu horeeya TSS ayaan ku marka dirta soo gasho waxaad eegaysaa dirtaadu markasta inay Binance shaqeynayso hadii Binance marka aad san u kala wareejiso halkaas yar cadaan noqoto ay cadaan noqoto Binance ma shaqeynayso shirkadda ayaa la hadlaysaa adigoo tagaya qaybta setting-ka kadibna tagaya support-ka waxaad ka oranaysaa marka support-ka aad tagto ma shaqeynayso qaybta Binance maanta marka way ku soo jawaabayaan iyaga ayaad markasta la hadli kartaa aniga hayla soo hadlin waayo application-ka anigu mas'uul kama yihi marka ad ayaad leedahay si aad ugu soo darto underice-ka sidoo kan ayaan iska masaxnaa waa arkaysaa kan ayaad ku dhufanaysaa TSS ay ku qoran tahay san ayaad u baaraysaa marka save ayaad leedahay marka save garayso okay baad leedahay haddana okay waad ka noqonaysaa kadib haddana waad ku soo noqonaysaa waxaad hubinaysaa underice-kii inuu save ku yahay hadda TSS save saas noogu yahay waan ka noqonaynaa marka waxaan doonayaa haddaba underice-ka TRX-ka inaan lacag ku shubo marka lacagtaan doonaya inaan ku shubo halkan ayaan taabanayaa kadib markaan taabto xaggan ayaan san u taabanayaa halka yar ee centerka kadib san ayaan kala wareejinayaa markaan kala wareejiyo halkan Binance ayaan ka dhiganayaa Binance oo kaliya magacan ma taagna ee waxa lagu soo dhigayaa Trust Wallet-na waad ka dhiganaysaa waayo underice-kii Trust Wallet-ka ayaa Binance ka hadda waxa ku shubi doontaa lacag $15 meelahaas ayaad iskaga shubanaysaa waayo waxa laga jari doonaa fee markasta oo aad la baxayso marka anigu waxa kugu talin lahaa ilaa $20 markasta ku shubo oo aad lacag dhiganayso hadda perfect money markii aan ku shuban jirnay pocket option-ka $5 oo kaliya ayuu ahaa marka $5 waxa bedeshay maanta in $20 lagu shuban karo markii pocket option laga saaray perfect money marka confirm ayaad leedahay confirm marka aad tiraahdo aad wuxuu ku soo dhigayaa labadan option marka ka sare ayaan doortaa markasta next ayaan leeyahay si toos ah ayuu saadkayga uga jaraya lacagta $20 markaan binka geliyo marka binkan geliyo $20 si toos ah waxay si toos u tagayaan Trust Wallet-kayga ayay si toos ah $20 u tagayaan iyadoo laga jarayo lacagta fee-da ay halkan ay ka sii goynayaan iyaguna lacag ayay ka sii goosanayaan marka hadda sidaas oo kale iyaguna waxay ka goynayaan $18.50 ayay ku dhigayaan marka lacag ayay ku dhigayaan marka halkan ayaad complete transaction kan aad samaysay halkan ayaad kala soconaysaa markuu sidan oo kale complete u noqdo hadda lacag hore ayaan dhigtay $15 oo arkaysan mar kale $100 ayaan EVC ahaan kula soo baxay oo lacagta Binance EVC ay dhigtay $100 oo arkaysan oo aan ku dhigtay Binance uma dhigan ee waxaan dhigtay meel kale oo ka duwan $100 mar kale waa arkaysan cancel kuwan marka ma isticmaalin markasta halkan ayaad kala soconaysaa transaction kan dhacay kadib marka ay complete tiraado lacagtii Trust Wallet-kaaga ay gelaysaa marka hadda Trust Wallet-kayga saas ayaan lacagta ku soo dhiganayaa marka ay Trust Wallet-kii lacagtii ii soo gasho Trust Wallet-kii ayay lacagtii ii soo gashay hadda lacagta waan ku soo shubi doonaa laakiin hadda lacag kuma soo shubin macnaha waxaan ka wadaa inaan ku tuso TRX-kan ayaan ku sii tusayaa TRX oo kaliya ayaad ku shaqaysanaysaa ama USDT labadaaba waad isticmaali kartaa oo lacagta waad ku soo dhigi kartaa markasta USDT-da hadii aad ku soo dhigto taroonkan ayaa fee kaaga baahanaya waayo taroonkan ayaa ku dulisan USD-dan ayaa ku dulisan taroonka marka hadii USDT ay lacagtu ka soo gasho taroonkan ayaa aanad lacagta kala bixi karin oo Trust Wallet-kii wuxuu ka oranayaa taroonka horta lacag ku shub marka si aad USDT-da lacag ugala baxdo marka had iyo jeer anigu waxaan kugu talinayaa inaad kan isticmaasho oo aanad kan isticmaalin marka kan waad iska saari kartaa adigu haddaad doonayso inaad iska saarto halkan balaaska ayaad tagaysaa USDT-dii ayaad ku qoraysaa USDT markaad ku qorto halkan ayaad iska xiraysaa hadda kaa waan iska saaray oo ma baahnin si aanan ugu qaldamin marka TRX-ka ayaan ku tusi doonaa sida pocket option haddana iyadana lacagta loo soo dhigayo marka tusaale ahaan pocket option-kii ayaan san u galay waxaan tagayaa halkan ayaan tagayaa phone-kayga marka profile-ka aan tago halkan waxaa sii tagayaa Binance ay ku qoran tahay kadibna waxaan tagayaa deposit marka aan ku tuso dad badan ayaa ku wareeray maalmihii markii la saaray pocket option hadda halkan waxaad ku arkaysaan TRX oo ku dhisan USDT-dii ku dhisnay taroonka
marka anigu tan isticmaalaya waa kan Litecoin. haddii aad u baahan tahay inaad lacag kusoo dhigato Litecoin kama raadinaysid App Store-ka iyo waxa kama raadinaysid, laakiin waxaad ka raadinaysaa imika Litecoin waxa loo soo gaabiyay LTC. marka waxaan dib u noqon doonaa Trust Wallet-kii ayaan ku noqonanaa, kadib anaga oo Litecoin ka raadinayna Litecoin halkan ayaan ka raadinaynaa LTC ayaa loo soo gaabiyay oo aniga kulaha LTC oo ka Litecoin kolba kii aad aragto sidaas ayaad ugu soo daraysaa. kadib Litecoin waa arkaysaa inaan kusoo daray LTC. marka Litecoin iyada lafteeda lacag waa soo dhigan kartaa, laakiin Litecoin waa marka aad barato kriptadana course ayaan ka diyaariyay, qofkii u baahan waa ila soo xiriiri karaa sida loo barto. Trust Wallet laftiisa waa ku shaqaysan kartaa oo kriptada waad ka iibsan kartaa course-kaas oo dhammaystiran. qiimahana hore ayaan ugu sheegay Telegram-keena Jeel Xirfad qofkii la socday, marka halkaas ayaad ku arki kartaa. haddana waxaan ku noqonay hadda waxa kale oo ku jira Binance oo iyaduna taas ayaa ku jirta. marka intanna waa tan oo kale USDT waxay ku dhisan tahay, Binance bay ku dhisan tahay. halkan ayaad ka kala baran kartaa sida ay u dhisan yihiin iyo sida ay iskugu dhisan yihiin. blockchain-nadan ayaa inta marka hore la sameeyo Tron blockchain la yiraahdo ayuu ka iibsanaya USDT qayb. marka aan doonayo haddaba Pocket Option inaan lacag soo dhigto waxaan ku dhufanayaa TRX-kan ayaan ku dhufanayaa. kadib marka aan ku dhufto halkan horta waxaan gelinayaa qiimaha lacagta aan soo dhiganayo. lacagta ugu yar ee la soo dhigan karaa isaga ayaaba sheegay oo halkan ayay ku qorantay waa $10 halkii markii hore la soo dhigan jiray $5. marka $10 aad halka geliso halkan ayaa taabanaysaa. halkan marka aad taabato kadib waxa aad koobiyeysanaysaa Antarayskan waa kii oo kale aan gelinay markii ay dirta, isna waxa aan gelin doonaa Trust Wallet-ka. marka halkan ayaan koobi kale oo arkaysaa koobiyay. kadib marka aan koobiyo toos waxaan u tagayaa Trust Wallet-kayga oo marka hore aan lacag ku soo shubay. lacagta marka aan ku soo shubo waxaan tagayaa halkan TRX-ta ayaan lacagta soo dhiganayaa. markii hore markii hore receive ayaan yiri, laakiin imika saan ayaan oranayaa. kadibna Antarayska aan sitay ayaan halkan gelinayaa. kadibna dhammaan lacagtii aan dhiganayay Pocket Option haddii $10 ahayd haddii ka badnayd halkan ayaan gelinayaa. kadibna sidaas lamida next ayaan siilayaa, waxayna toos u tagaysaa Pocket Option-kayga. marka intaa haddii aanad fahmin muuqaal kale ayaan ka diyaarin doonaa. marka qofka aan intaa fahmin, marka qofkii doonaya inuu barto crypto iyo qaabka Trust Wallet looga iibsado muuqaal ku xiga ayaan kasoo diyaarin doonaa. laakiin marka hore waa inaad course ka qaadato. waxaa jira halkan swap ayaa la yiraahdaa, waa halka laga iibsan karo kriptada. halkan waa halka kriptada aad ka iibsan karto. marka hadda halkan ayaad ku qoraysaa marka coin-ka aad iibsanayso coin-ka aad lacagta kugu jirta. hadda TRX ayay ugu jirtaa. marka coin-kan iibsanaya tusaale ahaan XRP ayaan iibsanaya, inkastoo halkan lagu soo darin. haddaan iibsanayo Solana oo kale way ku jirtaa. Solana marka TRX lacagteedii igu jirtay haddii $200 ahayd halkan yar baan taabanayaa, halkan yar hoose baan taabanayaa. kadibna lacagteedii waxay isku bedelaysaa Solana. kadibna sidaas ayaan Solana ku maalgashaday. laakiin qofkii doonaya inuu barto course-ka oo dhammaystiran kriptada awoodda saaro, waayo sanadkan kriptadu kor ayay u kacday dadkii la socday, waxaana yeelatay mustaqbal. dad badan oo Soomaaliyeed aad ay imika u xiiseynayaan. haddii aad doonayso inaad barato insha Allah muuqaalkan ha noqdo muuqaalkii ugu like badnaa. marka inta ayaan kusoo gabagabeynayaa muuqaalkeeni maanta. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.